ودع الكلام عن الرجال لعالم عدل تقي صادق رباني وصل اللسان عن الشتائم والأذى كم باللسان يزف للنيران واحذر تسر بزلة من مسلم وقل المحامد للذي عافاني. waxaad tidhi doctor Faysal wuxuu yidhi Abdullaahi Sheekh Abdullaahi Barbaraawi baa yidhi waa yuxshar naasu duha doctor Faysal wuxuu yidhi ama duha la soo xaadiriyo ama habeen la soo xaadiriyo haddaan ku yiraahdo bal ka war Sheekh Abdullaahi Barbaraawi hadalkaasi waa been anigu habeen ma oranay casran baan yidhi waxaan ku yidhi maxay iska kii bedelay masalada iska kaaya bedeshay oo dadka ma u sheega haaya u sheeg wallahi baanay sida ahayn waad noogtay inaan sida ahayn لكن قار كلام مقيقا هذا يسوق قران وإن عدتم عدنا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حلقة وحنو قارية إن شاء الله تعالى إن الاستلتاقو عجلت أما مقطع ساعدية 6 دقيقة سعونيي oo Sheekh Abdullaahi Barbaraawi uu duubay waanahu alayhi qawmun aakharuun oo runtii aad looga shaqeeyay qaradka iyo ujeedada sida ka muuqatana uu ahaa isqaad shakhsiya shakhsiyadii munaadarada dalbatay in la isku dayo in la isqaadiyo hadalka sida ka muuqata waxa laga yaabaa muddo saacadood ama 2 saacadood ku dhowba in la hadlayay uu hadlayay Sheekh Abdullaahi Barbaraawi iyo cid ugu kaalmaysay laakiin charchar badan ka bacdi la soo gaarsiiyay saacad iyo 3 daqiiqo warkiisa markaan dhuuxay Sheekh Abdullaahi Barbaraawi 5 qodob ku dul wareegay al-igraq fi at-tafasil wal-juz'iyat laysa min 'adati تأصيلك يا أصول شيء للضبطية أي كم مهمسن هذا الكيس ما كان سكوع العليي قدوك كواد وكو ليجيا أما وقت بدن جليي إنه كوعليا هذا الكيس هراء وجتجي ودوبي كوبي طبعا كي ربيع الأول هبين كي كوبي طبعا كربيع الأول ليلة الجمعة كن يافر بقولي كوبي يافرتنك وقلت لك إنه جواب النقطة طلب كي ضد عن البضي قضب كاس وكوع العليي وقت بدن بانو كقاعدة وحاني هيد إن ما دام هراء وإنت الشيء إن أنا وحبك سوعلين وهي وقت جوا ثمين جزئية كستا وقت كم إذا قفك وحلا بهي وح عصب كانوا أنت هراء وأنا كوع العلين هدو وحكو صادري وحكو صادري قضب ويري وحي سبب ويهين ديد مدى أن ديدي وإلى أفر قضب إن أنا الدكتور فيصل للدودينين قضب كلواد هذا الكيسن كتشرا أمع كليب كيسن كتشري سوى الله وقعد يحن كريو إن بدن أو كم إذا ساعد 10 دقيقة قاتي توهم فربدن إيو وحيابة بدن وأنا ويقول جانيو أساليب كلا دوان ويقول جانيو مر بين بيقول جاني ووقتها كلا دوان سوء العليي مر تناقض يسبران برين بيقول جاني مروح يقول جاني إخلاص درة مروح يقول جاني إسكبرين مروح يقول جاني إزدراء إن ضدك كوسمين يتحقير تهم أن لوم الدين أو فربضن أيو سيداي قدر كسد هذا كم مغريضنا وحيا حيد إن كستو حاجة ضمباي وبضنيد وعدي وأنا جاي سوي شيدين وعدين أيو قدر كأفراد وحكم موقتي أنا بريء استعطاف ويقدر البيو إن توتشيو ودد كان وكم جعابة السلفيين تأولية هاي ويربطكوها هاي سا إن كدا وحيابك كلا أنكم مشغولة ودد كلا رديو نوع استعطاف وحوج النوى كم مقضي وحكلا كتشري سؤاله أنا جاي سو وجهي أو كلا ددوانا وسيابك كلا ددوان وسؤال أنا جاي ويديني عشان تصيا وقوم وقشبتنا
waxa kale iska dhextaala iyo waxyaabo noocaas iyo tikraar fara badan ayaana ka muuqday haddaan cajalada qiimeeyeen cajalada iyo shakhsiyada markaa fadhiday iyo xaaladda uu ku sugnaa waxa ka muuqday nooc inhizaamiye markaa ma garanayo meesha ay kaga timid waxaan u filayaa de masaladii uu awoodi kari waayay inuu kusoo dhiirado inuu munaadaro usoo fadhiisto iyo shaarica isaga ku xeerano uu daqdi ka dareemay ayaa inhizaamiyada ku keenay shanta qodoban haddaba isduldul taagi doonaa amtilana ka keeni doonaa qaarkood waan iska dulmarayaa sida wacdiga oo kale inuu wacdiyey wacdiga waxaan ka leeyahay qoftii la wacdiyey waxa u furan inuu yidhaahdo ilaahay haynagu anfaco ilaahay haynagu anfaco qof odhan karaya maxaa lai wacdiyeyna ma jiro laakiin waxaan leeyahay uun laba qodob ma tusaalaynayaa wacdigu adigana ha ku anfaco adigana ha ku anfaco oo itihaamaadka aad muslimiinta tuhmaysay cajaladaadana ka buuxa waxaadan daliil u haysan ikhlaasku qalbigu dhacaa ikhlaas darro iyo xaqiritaan iyo isdiraa iyo aad leedahay bal wacdiga adiguna iswacdi waana ku ognahayo dee wacdiga mashhuur baad ku tahayo waxyaabahaad ku caanbaxdayba dee wacdiga ka midoo mar hore aan tilmaamay oo risaale yar ama maqaal yar aan kugu radinayayna alwaacid almajruuxa adaan kuula jeeday julli waxaad ku shuhrowday caanka ku noqotayna waa wacdiga marka horta iswacdi oo adigu naftaada ka bilow tawacdiga intaasaan ku dhaafayaa tabaryada iyo istictaafkana iyadana waxaan kaga jawaabayaa waxba ha istictaafin imika markay xaaladii kululaatay in badan baan dhagihiinu ay ku soo dhacayeen aniga keliya maahe majlisul cilmigu ay idin lahaayeen masaa'ishan soo fadhiista markii ay weydowday ee hawshiidu ku soo jeesatay in aad tidhaahdaan istictaaf la timaadaan waxba idin tari maysee hawshu way soconaysaa insha allahu tacaala masaa'ishanna haddaad ka aamustaanna waa laga aamusi doonaa oo insha allahu tacaala waa sida khayrka badan in aad ka soo noqotaan wadadan aad marteen ee mugdiga aad dhufateen inaad ka soo noqotaan oo magacan aad quruxda badan ee aad ku celcelinaysaa leeyahay salafiya waxba idiin tari maayo oo ummadda kama xigtaan salafinimada sheegashaduna maziye idin siin mayso xaqiiqada ka dhigi mayso ilaa aad ka soo noqonaysaan ama aad ka aamusaysaan hawshu way soconaysaa istictaafkuna waxba tari maayo saddexda kale ee soo hadhay haddaan dib ugu noqdo wax ka tilmaamo ugu horayn afar qodob buu sheegay sheekh cabdulaahi barbaraawi uu ku diiday oo uu sabab uga dhigay inaanu aniga ila doodaynin ta koowaad wuxuu ka dhigay oo uu yidhi ujeeddo gaaruu leeyahay ujeeddadaasoo ah caanbax inuu soo caanbaxo waxaa kaloo uu daliil uga sii dhigay arrinkaa maxaad aniga sida gaarka ay igu dalbatay iyadoo cid kale ay kaa dalbatay halkaa dhowr waqfaan ka odhanaya qodobkaasoo cidda caanka ah iyo cidda ku caanbaxaysaa in la isweydiiyaa waa muhim waxaadna igu kalifaysaa horena waan u tilmaamay sheekh cabdulaahi barbaraawiyo aan ku idhi waxaad noqotay ashama akhin fii xisbihi tii baad weli wadaa dadkana waxaad u dhibgelinaysaa waxay taxaashi ka samayn lahaayeen oo ka tarafuci lahaayeen inay mustawaha u soo degaan oo sidaa u hadlaan baad ku qasbaysaa cabdulaahi barbaraawi haddii dib aan u milicsado taariikhdiisa sidaan ku hayo horta wuxuu iska dhigayaa kaanamaa inuu iga weyn yahay oo nin iga weynoo faariq cumriyo dheer uu noo dhexeeyo sheekh cabdulaahi barbaraawi sida uu qirtay waxaanu kala weynahay waa wax aad u yar ama waa sanad ama waa 2 sanadood hadday ugu badato waa 2 sanadood iyo badh marka horta wax cumriya aniga sheekh cabdulaahi barbaraawi igama weyna xagga talabkana sheekh cabdulaahi barbaraawi 29 buu sheegay inuu ka tagay wadanka oo uu Yemen tagay isagoo cumrigiisu waliba uu 20 ka yar yahay taasi waxay khilaafsan tahay jaadadii ahlul cilmigu samayn jireen ee cilmiga ahlu baladkooda ay marka hore xasilin jireen ka bacdi ay meel kale u intiqaali jireen waxa muuqata adoo taxsiil badan lahayn in aad Yemen u intiqaashay Yemen marka tagtayna 4 sanadood iyo waxaan dhaamin bad soo joogtay oo waliba meel kala duwan aad marmartay haday tahay damaaj in kastoo ragga qaarkood oo reer damaaj ay inkirayaan inaad sheekh muqbil arday u ahayd iyo meel kale 4 sanadood qof maqnaa oo intaas oo meelood u kala kicikicimay taxsiilkiisa waa la garanayaa
markaad soo noqotayna halkaad cilmiga ka dalbi lahayd ee ahlul cilmigii baladka aad cilmi ka qaadan lahayd ayaad waxaad isku qaaday laba qodob oo aan isqaban karin oo ah inaad wacdiga aad ku shuhrowdo oo dadka aad wacdido iyadoo shay xasana uu yahay laakiin wacaada waxa qaaliban ay ku dhacaan akhtaa'aad iyo aad u fara badan ahlul cilmiguna way tanbiihiyaan wacaada iyo qusaasta inaan warkooda aad loo qaadan waxaad kaloo ku aanbaxday inaad khalqiga ilaahay ee saalixiin iyo cubaad iyo nooc walba leh inaad carabkaaga ku jaraaxayso ayaad ku aanbaxday idan labada qodob ee aad ku aanbaxday hadday wax kuu tarayaan oo ay caan kuu tahay qaado hadday aniga u timaado anigu bixamdillaahi tacaala adaa ii qiraya sheekh cabdikariim xasan xoosh inaan cilmiga ka qaatay iyo culimmada kale la midka ee ahlulbaledka ah iyo macaahidda sharciga ee wadanka ku yaala ama macadkii ceergaaba ha noqoto ama waxa weeye ka bacdi markii aanu nimid ha noqoto markii dambana ilaahay nagu irsaaqay inaan tagnay jaamica alislaamiya oo akaabir alculamaa 14 sannadood aanu ka faa'iideysanay ama kuwa jaamacadda macalinka ha noqdo ama qaar ka baxsana markaa labadeena talkeebaa doonaya ka kale inuu ku shuhroobo taasi waxa weeye dadkan uga tagaya adiguna waad ogtahay dadkana waan uga tagaya waxna ku tiigaali maayo oo mana jeceli qofku inuu da ka sheekeeyo wuxuu yahay laakiin sidaan tilmaamay Cabdulaahi Barbaraawi duldulkiisa ayaa wax badan kugu khasbaya qodobka labaad wuxuu tilmaamay kuma qanacsani aqoon iyo khibrad inuu leeyahay waxaan filayaa aqoonta uu ogyahay Cabdulaahi Barbaraawi aqoonta mustawa cilmiga meeshuu ka joogay anigu meeshan ka joogay malaa wuxuu u jeedaa ururadan ay eriyanayaan iyagu ayaadan aqoon u lahayn waana sida hadalladooda inta badan ay ku celceliyaan oo yiraahdaan nimankan anaga idinka aqoon badan taasi biikhtisaar waxay daliil u tahay anigu kamaba hadlin baniman isaga ku cararaya niman iyo kooxo muayana iyo dad uu ka laalaaday isaga ku cararaya anigu mas'ala cilmiyaan kala hadlay mas'ala cilmiya hadhow baa loo iman doonaa mas'alada marka meel la saaro sidaan majaalis badan ku cadeeyay ayaa loo iman doonaa hebel iyo طائفة معينة iyagu maxaa ku tabaqmaya xukunkan ku tabaqmaya mise kuma tabaqmayo hadhow baa loo imanaya marka taasi markeeda hal la gaaro haddaad adigu iga aqoon badan tahay tawaa'iftan joogay haddaan anigu kaaga aqoon badanahay ayadoo aan ognahay itixaadka carruurtii yaryar itixaadku hayeen iyo culimada itixaadku hayeen aad kamid ahayd oo laftaadu wax khibrad iyo aqoona wax lagu sheegay mooye aanay jirin taana waan ognahay qodobka saddexaad wuxuu ka dhigay waxa aan la isla xadidin oo aan anaga Dr. Faysal waliba isla fahamsanayn meesha iyo mas'alada laga doodayo way xadidantay hadalkayga horena uu ku jiray mas'alan ka dalbaday kaliya sababtan adiga kaaga dalbadayna ina waan tilmaami doonaa mas'alan dalbaday way xadidantahay goobtuna dhibaato male laakiin goobtu waxay farac ka tahay markaad ogolaato dooda aan dalbaday iyo mas'alada aan dalbaday markaad ogolaato ayay farac waxay ka noqonaysaa goobta iyo meesha waxa kale oo ku daray xanaaq baa ka muuqday kilibkii oo soo duubay Dr. Faysal sida daraadeed maadaama uu sida u xanaaqsan yahay hadhow talow yaa dabdin karaya horta in la xanaaqo marka xaq la sheegayo هدي النبي كما تاع عليه الصلاة والسلام وأسلوب من أساليبه حديث كمسلم حديث جابر في صحيح مسلم كسر بعد دليل نبي إنه عارون شري إن عد كيس كرن قن شري إن وجه كيس سباد الدليل شري مركب أسلوب أساليب تكملة دليل لا ومعها قفك هدو سدا سمايو إن بمعنى حق ليس ويدين كريم يضع الله رنكريو أسلوب كأن مري وأسلوب الشيخ عبد الله بربراوي كوحدي مناسب جدا وانا تلمامي مجالس وراكو تلمامي هذا باش انت قضب هلا افرتا قضب او شيغي waxaan tilmaamayaa inta aanan ka bixin qodobka dooda ku xiran iyo qaabkan u dalbay dadku waxay wada ogaayeen dib hadii loo noqdana la helaya anigu Cabdulaahi Barbaraawi jalsadaas iyo talabka dooda muayyanka mooyee doodihii dalabaadkii ka horeeyay Cabdulaahi Barbaraawi gooni uma dalban وانا الله نقول كلام
masalada marka la weydiiyo waxaan oran jiray cajaladahana ku duuban cidda sidaasi ka duwan khilaafsan gogol cilmiyaha ku soo dhawaato waa la helayaa dhammaan meelaha aan ka yiri ama ha noqoto burco masaajidka masjidul madiina ama ha noqoto masjidul nuur ama ha noqoto hargeysa ama ha noqoto wajaale ama ha noqoto gabilay cabdulaahi barbaraawi iyo qeyrkii toona midna ma xadidi jirin waxaan oran jiray cidda arrinka diyaarka oo sidaasi ka duwan qabtaa gogol cilmiyaha ku soo dhawaato cabdulaahi barbaraawi hadaba goormaan xadiday cabdulaahi barbaraawi waxaan xadiday waana akthar min marna waan sheegay kelmadayda aan dooda ku yeelay waxay daba socotay tii wajaale adigu aad ka gashay ee aad mas'alada ka hadashay ee aad tiri dad baan ilaa aan fahamsanayn wax la isku hayo oo waxa weeyaan jamaacada u yaqaan masaajid kursi la dhiga iyo waxyaabo noocaas ah talabkaygu taasuu daba socday maadaama qofkii ugu dambeeyay ka hadlay adigu aad ahayd maadaama aadna tacriidisay oo aadna tilmaamtay sidaa daraadeed baan aniguna iri ninkii hadlayay ee maalin dhaway wajaale sidaa ka lahaa dood cilmiyaha u soo dhawaado ee anigu wax gaar oo adiga ii ka saaran imkana waan cadeynayaa horena waan u tilmaamay wax iga ka gaar oo adiga ka saaran ma jiraan laakiin maadaama ninkii ugu dambeeyay aad tahay ninka ugu hadalka badan ee ugu maqiiqan qadiyadana aad tahay in lagu tilmaamo inaad dood soo diyaar garowdo sababta loo yeelina anigoo waliba sheegay inaadan mustacid u noqon karin inaad dood igu soo hor fadhiisatana waan sheegi doonaa idan marka qadiyada arrinka uu ka dhaliyay ah Dr. Faisal cid buu doonayaa wax jira maaha cid gaar ah ma doonayo kilibadaydii horena waa loo noqon karaa iyo majaalistii aan tilmaamay ee imikana anigaaba cadeynayaba aniga cadeynaya cidda mas'aladan dadka ku tabdiicisan u jeeda cidda mas'aladan dadka ku tabdiicisa ee sida aan u taasiilinay si ka duwan qabtaa ama fardi ha ku yimaadaan ama hayso soo bahaystaan cidda noocaas waa la garanaya iyaguna way isgaranayaan taana intaasan ka yiri wuxuu tilmaamay oo ku soo celiyay oo suwarka uu ka qaatay uu leeyahay igu tuhmaya been inaan sheegay waxa uu tilmaamay in hore la iga dalbaday kadibna hadalkaygaas habeenka aan ka hadlay aan irin labada nin waan garanayaa ninka kalena ma garanayo halkaan uu ka soo dhex saaray inaan ilaaway xagga horena aan jasmiyay waxa leeyahay waan jasminayaa warkaasi war jira ma cid iga dalbatay ma jirto laakiin waxa aan ka tawarucay waxa weeye ninna waan gartay masdarka kadibkan cid faafisay waan gartay ninka kale uu sheegayana ma garan cid aan kadibka u tiirinaya ma garan ee anigu malihi kana waan garanayaa kana waan ka shakisana in laygu yiri inaan laygu oran anigu sidaa uma jeedo labada midna ma dhicin laakiin midna waxaan garanayaa cidii sababta u ahayd warkan in la faafiyo ee sameeyay midna ma garanayo cidda samaysay ee aqraanta lagu sheegayo taana intaas ayaan ku dhaafayaa waxa kale oo tilmaamay in aan iyaga ku iri waxa tihiin idinka mooye cidda kale oo dhani ummadda ilaa ka caamada ah waad ba tadliilinaysaan oo waxaad ka aaminsantihiin inay dad khariban oo khaldan oo ahlu bidca ay yihiin ووجه إلى أن أقول سيدا وجهدين هذا الكيغنا هذا النبي معها عليه الصلاة والسلام هذا الرسول وكلام معها وورد أي تاي وورد معصوم بالآدم بانه أنا اعتراف في كلام إن هذه إطلاق ميل معين يقعد عي أنا إطلاق وجهدين وحنوجه عدة تضليلين سواء قرأ إنسان ضدك الدعاء قيبتنا تكون شرتان الدعوة ضدك إذا كل شر الدعوة مساجدada leh ee maraakista leh ee macaahidda leh idinka mooye inta kale waa tadliilinaysaan inta kale taanu ugu jeeda waa tan noocaasa taana iskamaan oran de waxaad ogtihiin siiradiina marka dib loo galo qaabka dadka ula tacaamushaan Sheekh Ahmed Ciid cajaladii uu duubay ee mash'uumka ahayd ee meel walba ka dhacday 96kii ee uu tilmaamayay ee uu lahaa halkaasaanu tagnay halkaasaanu qabsanay cadowgii waanu ka adkaanay macnaha looga jeedo ayaad uga jeedaan iyo cidda cadowga ku tilmaamaysaan waa la garanayaa
هذا الكاد هذا هي أنا وحنا آمسنا يقف كستو كتاب كيا السنة على فهم سلف الأمة إنه حق السجية هي وكلمة حقوي لكن تطبيق على اسكو هيستان قفك أنك عليه الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة أيان آمسنا dadkan aad eriyanaysaan qaar kood baa nasgareeyo ku qoray kutubtooda iyo manshuuraadkooda ku qoray inay i'tiqaadsan yihiin ama daliil ka dhiganayaan kitaabka iyo sunnada ala fahmi salaf umma hadana aad tabdiicinaysaan waxa ku tabdiicinaysaan mas'ala aydan xujo u haysan oo xujana aydan u sheegin hadalkayga aan leeyahay ee aad ka soo saartay inaan been sheegayo ee aan idinku leeyahay xujo ma haysataan waa ku celinayaa xujo ma haysataan sidaan u haysanna fadhiyadii hore ayaan ku cadeeyay taadalka igu laazimisay aad igu soo celisay su'aashii weydiisay adoo su'aashii aan ku weydiiyay aan ka jawaabin ee adigu ma waxaad aaminsan tahay dadka oo dhani inay xaq wada taagan yihiin magacyana aad sheegtay ma anigu ma aaminsani dadku qaar khaldanna way leeyihiin qaar saxsanna way yihiin laakiin miisaanku adiga ma aha miisaanku waa kitaabka iyo sunnada ayaa wax lagu miisaamaa marka waxaad kugu haystaa ma aha dad khaldan oo khaladkoodu saxsan yahay baa takhtiaysa kugu ma haysto ee waxaan kugu haystaa cid aadan xujo takhtiadooda u haysan iyo tabdiicooda ayaa tabdiicisay halka ka caradi su'aalaha tawaa'iftaadii weydiisayna waad ogtahay tawaa'ifta munxarifiinta ummadda aktharkood islaamiyeen inay munxarifiin yihiin ama shabaab leh ama daacish leh ama qeyrkood leh inay munxarifiin yihiin oo khawaarij yihiin waan ogahay ama shabaab leh inkasta oo Dr. Uthman Macallin ومجلس ديدي إن لغو حكومة شباب كخوارج لغو حكومة تاسنا أي جرتي لكن أنا أقول سؤال توصل كويدي لكن وكما جوابين خطأ أنا وحقه قف كيات سؤال ويدي سؤال كلادي كويدي سواء تادي كجوابين أنا ما قاعد كويدي وحكوري وزير كأوقافة الشيخ خليل عبد الله مسألة في بعد كام سنة مسألة كما أهم سنة كما جوابين waad ka dulbooday ana imka kugu soo celinayay anu tayde waaniga sida cad kaaga jawaabay bal ka jawaab culimadan reer Hargeysa meel kale ba ha tagin ama reer Soomaaliland ka soo bilow laascaanood ee ummadu ay u taqaano culimo u taqaano Sheekh Abdul Naasir Xaaji Ahmed Soomar Sheekh Ali Warsame iyo rag la midka reer Burco soo tag Hargeysa Sheekh Dirir Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun qaamaadka cilmiga ee ummadu ay u taqaano inay yihiin ahlul cilmi ay u taqaano bal adigu waxaad ka aaminsan tahay ku soo dhiiro ka sheeg ama ardaydaada ka dhex sheeg ama mala ay dadka u sheeg way badan yihiin culimada waa ka misaal inta kaliya ma ay culimadu way fara badan yihiin haddaanu imaado qodobkan waa amsilada badan ka bixiyay oo leeyahay tanaaqud baad ku dhacday ama uu ka laaziminayo tanaaqud uu markii hore iftiraaday yani qariibka Sheekh Abdullah Barbaraawi wuxuu iftiraadaya markii hore tanaaqud inuu jiro haddana tanaaqudkiiba wuxuu ka laaziminayaa inuu kadib yahay waa usluub sayyi awalan horta tanaaqudka intaadan sugin intaadan tanaaqud ku sheegin horta sug inuu tanaaqud yahay waa marka labaadee تناقض كاسي إنه كذب يهاي وكذب كلازمه ينا واللازم واللازم كلاسما قبطه وقفك واحد لقى يا بيسوق عن سوقين أو هذا كان كتنبه سنين إنه هذا دعضبع إن الله هذا أو إسبران برينكر أما الظاهر كود إسبران برينكر إن لقى مقلو مركز هذا بين بوشة أدوان هوبسن وحوي يدنا وفجور في الخصومويين bal hadaan taa kugu laazimay adiga oo sida aad sameynaysa adiga aan kugu sameeyo ma iltizaamaysaa ma aqbalaysaa waxa tiri tusaale waaxida ka bixinaya hadalkaagi tanaaqud waaxidan tusaale u bixinaya inta soo tanaaqud ay ku jireen waxa tiri Dr. Faisal waxaan ka dalbanayaa inuu cadeeyo inuu qolyahan aad salafiyada u taqaano inuu ka digi jiray ama tilmaami jiray ama akhtaadooda uu tilmaami jiray meesha aad ku sheegtay ama kitaabka aad ku qortay ama dars cajalada aad ku duubtay sheeg oo aad macnaadeed hay ma jiro halkaas sidaas aad u tiri mar kale hadana
daqiiqada 3 kontonaad hadalkaaga iyo 4 kontonaad waxa tiri waxaan ogahay inaad in badan ka digto oo macaahidda iyo maraakisda iyo aad kaga digto salafiyiinta haddana dabaynta hadalkaa kuu qabto ku yiraahdo waa tanaaquday oo beenaala tahay ku farax gelinaya haddaan bal suuro kale kuu soo qabto mar waxaa tiri urur ma tihid waxa way urur baa tahay oo ururkan jamaacatul i'tisaam baad ka socotaa xagooda ayaa tiri marna waxaa tiri cid ma matashid oo kaliya baa iska socda bal labadaana wax dhex waxaad kaloo tiri bal haddaan nujaari kama taqool haddaan mujaaraad ku sameeyna sida aad sameynaysa Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi oo anagu ma sameeyna noocaas oo kale ma nihine waxaad tiri Dr. Faysal wuxuu yiri Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi baa yiri waa yuxshar naas duha Dr. Faysal wuxuu yiri ama duha la soo xaadiriyo ama habeen la soo xaadiriyo haddaan ku yiraahdo bal ka war Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi hadalkaasi waa been anigu habeen ma oranay casran baan yiri haddaan ku yiraahdo ka war kooran maayo waa sabq lisaan bashar baa tahay kuma oranay laakiin waxa soo kale inta urursato inta inaad tiraahdo been buu sheegay tanaaqud buu sameeyay waa kadib ila ma hunaalika waxay noqonaysaa inaad adiga laftaadu aad isku xukunto ila tanaaqud iyo kadib aad ku dhacday laakiin nahnu natarafacu an mithli hada tanaaqudaadka uu igu sheegay haddaan wax kamid ah ka tusaaleeyo waxa uu yiri waxa aad tiri anigu Cabdullaahi kaliya la doodaya adigaan ku doonaya haddana waxaad aniga igu tiri Cabdullaahi cid buu doonaya cid buu ku socdaa hadalkaas waxaan cadeynayaa wax tanaaqudeen aanu ku jirin si waxaan ugu jirin anigu markaan ku leeyahay adaan ku doonaya sabab bay lahay sabab baa keentay oo hadalkaygu wuxuu daba socday hadal adigu tiri adigaan doonaya inaan ku istaajiyo oo hadalkaygu hadal buu daba socday taasi waa dhinaca kale wuxuu kale jawaab u ahaa marka tiri 14 sanadood baan ka hadlayay cidina ima soo jawaabin baan jawaab waxaan kaaga dhigay 14 sano ka hor aniga ima dalban laakiin anigu anaa ku dalbaday marka jawaab bay u haydee anigu ma oran kumana xirin mana shartisan mana oran Cabdullaahi mooye cid kale aan la doodaya ma jirto laakiin taadu adigu way cadahay oo waxay ku cadahay intaan dood ka dalbaday mas'ala muhaddadana aan ka dalbaday ayaad waxaad samaysay mas'aladiina waa diiday waxa tii masaa'il kale lagu soo daro anigii shakhsiyadeedina waa diiday waxa tii qolyo kale lagu soo daro de markaa miyaan iska cadayno waadix ahayn in aadan aniga doonayna cid kale aad doonayso oo aadan mas'aladan in laga doodo aadan doonayn waxba ku tarimaysa waxaan hadalkayga ku daray soo raac iyaga aniga ciidama soo dirsan ciidana ima oran Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi la soo dood anigoo kamida culimada ku dalbaday oo ku yiri ila dood waana hadal baanay daba socotay mas'ala muhaddadana ku ka dalbaday intiiba waad ka dulboodo meel kale aad isku qaaday marka halka tanaaqud kuma jiro waxaad kaloo tanaaqud ku sheegtay waxaad tiri awqaafta markaan soo jeediyaan idhi awqaaftu hadna kala dhex gasho iyo beerta xorriyadda iyo waxyaabaha la midka aan sheegay haddana Dr. Faysal wuu diidayo waxa weeyaan arrinkii anigu igu dhaleeceeyay sax waan kugu dhaleecaynaya waxaan kugu dhaleecaynaya malxadkaana inaad fahantaa muhiima ama hadaadan fahmaynin lagu fahamsiiyo waxay aniga khalad igu noqon lahayd marka aad tiraahdo mas'aladii iyo Dr. Faysal doodiisi waa aqbalay haddaan wax kala keeno aniga khalad kale laakiin labadii midna kama hayo waxaanan anigu ku dirsan oo aanan ka dalban oo cid kale aanay ku weydiisan ayaa tagtay de marka in laga fahmo ama ay tahay xaqiiqadu in aad daadafaynayso doodii oo aadan doonayn soo hor fariisato way iska cadahay waayo wax muhaddada laga dalbaday qof muhaddada ka dalbaday oo aan ku yiri anigu cidna uma hadlayeen mas'ala cilmiyaan u hadlaya taasna wax tanaaqud kuma jiraan waxaad tilmaamtay inaan
kun sanadood haddaan jiro aanu ku soo hor fadhiisanaynin waad ku celceliso ma qaybkaad og tahay oo ilmiya lagu waxyooday waxaas waa hadal aan طالب العلم ku hadlin laakiin teestuldaaga u badan waxa weeye laba qodob goormaad iga quusatay waa qodobka labaadne haddaad og tahay inaadan soo fadhiisanaynin maxaad iga dalbanaysaa labadaas wax la istultaagi karaa ka hore waxaan ka quustay intii aan ku aqaanay aan masaa'isha ka wada hadlaynay ee tiima ka aad ikhtizaalisay aniga waxaad ugu tiri Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi aad igu tiri Ilaahay ka baqo anigu waxaan ku leeyahay adiguna Ilaahay ka baqo waxaad ku soo ururisay jalsadii dheerayd inay dhex martay waxaan ku yiri maxay iska kii bedelay masalada iska kaaya bedeshay oo dadka ma u sheega haaya u sheeg wallahi baana sida ahayn wad noqtay inaan sida ahayn mas'aladan lafteeda inuu ka doodmay taasiilkeeda ma ila aaminsan tahay baan ku yiri waad ka wareegaalaysato ihtisaam baad u boodaatay ihtisaam xukunkeedu waa maxay oo aad ugu celcelisay markaan ku yiri ihtisaam waa ahlu sunnana waad baxsatay oo daaqad iska furtay marka usluubkaaga iyo arrinkaaga markaan eegay iyo mas'aladan bidaacadaadu intay leeg tahay ayaan ogaaday ama aan ku qancay inaadan soo hor fadhiisanaynin haddaba maxaa faa'iido ku jirta Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi mala wuxuu doonayaa inuu duruus u dhigo ku saabsan qadaayaadkan faa'iidooyinka la doonayo in lagu taxqiijiyo munaadaradu ma aha qofkan kula munaadaroonaya inuu qanco kaliya ma aha adigoo og inaanu qancaynin ayaad u baahan tahay inaad la fadhiisato la doodo maxaad ula doodaysaa koow inaad ifhaamiso oo xujadiisan iyo waxaan uu sito inaad ka kala daadiso ee uu xujo ku sheegayo iyo cidda uu sirayo ee uu uga dhigay inuu xujo haysto inaad cawarka xujo la'aantiisa aad u muujiso waana مطالب مهمة markaan leeyahay ku soo dhawow maa'idada cilmiga in aadan ku soo dhawaanayna aan ogahay ujeedadaydu waxa weeye cajzigaaga inaan muujiyo si aadan mas'aladan aadan mar dambe ugu celcelin dadkana aadan ugu dhibin marka faa'iido iyo malxad fiican ayaa ku jira waxa kale oo tilmaamay Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi waxyaabihii uu aniga kadibka igu ganayay markuu qadiyada ka waramayay wuxuu yiri waxaad sheegtay 97 iyo 96 labadaba waad sheegtay inaad qadaayaadkan ka hadlaysay yaase kuugu daliila 96 inaan ama 97 wuxuu kala soo baxay inaan been sheegayo waa gariib يعني inaan ilaahdo 96 kiiba ama 97 kiiba ay ahayd waa taqriibi taxdiidi ma aha taqriibi way taxdiidi ma aha inay arintani jirtay maxaa kuugu daliilana waxaad sii wadaa arinkii un baad sii wadaa kuuri ashama akhin fi qawmihi wa fi hizbihi de waxa doonaysaa inaan ku sii daro intaan sheegay in ka badan laakiin waxa ku leeyahay aduguna hargeysaad ku nooleedna burcan ku noolaa reer burca weydii oo qolada reer sunna weydii oo Sheekh Cabdikariin weydii oo waxaad waliba ka soo idan qaadataa jalasaadkii gaarka ahaayeen dhex mari jiray qaarkood uu sheekhu iga dalbaday in aanan faafin inuu ii idmo diin baa aniga qabanayso faafin maayo kuwa gaarka ah hadii kale ka joog waxaan filayaa inta aan imika sheegay inay wadaadadii iyo kooxdaadii dibsadka ay dibsadeen inay dareemi doonaan hadalkayga aan ku yiri ashama akhin fi hizbihi baatay oo dib ay bari ka ahaayeen fi ma'man kaga sugnaayeen inaad sabab ugu noqotay tiibaad imikana sii wadaa waxaad kaloo sheegtay qolada reer burco ayaa tiri iyaga aniga agtayda ka run waxa weeye run badan labadooda markay noqoto Dr. Faysal iyo iyaga waayo iyaga been kuma tijaabin oo hadalka تعريض كجرا دكتور فيصل isaga been baan ku tijaabiyay abshir ya sheekh Barbaraawi abshir waxa tiri kuma tijaabin tayda ila mabaad keenin boo waxa been aad igu tijaabisay mabaad keenin waxyaabaha lawaasimta iyo waxaase tan ku sheegi doono bal waxa weey hadiyadu qaado waxa doctor Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi fadhigii bishii safar aan ka sheekay hore uga waramay
masjidu hijra saddexdii cisho soconayay habeenkii koowaad lagu qabtay waa kii hore maaha shirkii dambe weynaaye iyadu wax badan ay soo baxeen kii hore ee safar dhacay ee habeenkii hore lagu qabtay markasul ihsaan bacda al-maghrib ilaa bacda al-isha iyo kadib subaxdiina lagu qabtay masjidu hijra subaxdii dambe dalxiis hoteelka dalxiis aynu fadhiisanay iyo waan ka shakisanahay labada ku ahaa waayo laba hodeel isu dhow had wanaag iyo dalxiis labada mid ahaan buu ahaa mid saddexaad ma ahayn aynu fadhiisanay ee qaraaraadka la siyaaqaynay oo waliba maalinta bayaan la doonayay in laga soo saaro qadaayaadkii kalshaale iyo fitankii ka dhacay in halka la isweydiiyay qaraaraad ma ka dhignaayo ma laga soo saaraa damaaj iyo Yaxya al-Xajuuri iyo dhalinyarada ka timaada ma ka dignaa mise kama digno oo adiga iyo ragaad ku jirtay aad mutaxammis u ahaydeen hal laga digo acyaantooda hal laga digo oo markas ku damaaj hal laga digo oo atbaacda Sheekh Yaxya al-Xajuuri hal laga digo waliba waxaad gashanayd khamiis kafeeya baad gashanayd iyo koofiyad cad waad sawirant oo waliba aad ka caafariisanaysay aad lahayd nimanka hal laga digo rag kalena ay kugu raacayeen iyadoo qisadaasi dhacday markii Yaxya al-Xajuuri warkaasi uu gaaray dariiqo dooraba ku gaaray in saaxiibada kuwan aad leedahay been kuma tijaabin ay warqad qoreen tawqiicyadoodii saxiixyadoodii ku yaaleen oo la hayo Yaxya al-Xajuuri ay u qoreen u direen ay leeyihiin Yaxya adiga iyo markaskaaga iyo atbaacdaada fadhiga iyo ka hor iyo kadib iyo gudihiisa midna waxa weeye lagu ma soo hadal qaadin ku bishaaraysta ta kadibka sariixa ah adaa ilaa halka gaarsiiyay ku bishaarayso waxaad kale ku bishaaraysataa saaxiibadaadan aad koolkoolinaysa aad leedahay waana shay dabiici oo isku urur baatihiin oo waa xisbigaagana de waa arkaanta lagu yaqaan taxazubka madmuumka ah in li ajli al-hizb been loo sheego in li ajli al-hizb la isu amaano shay dabiici oo la yaqaano waxaad ogtahay Sheekh Rabi' al-Madkhali jalsadii adiga uu kugu yiri adoo fadhiya uu kugu yiri ya Barbarawi tub ila Allah anta takdhibu fi haram Allah ulama waaway ayaa kugu xukunto kula beenana tay waliba fi haram Allah fi bayt Allah taa wax ka dheh adaa la soo taagan waxa weeye taad wax isku kakabtay ee lawaazima tiri been buu sheegaya kuwa kalena amaanay oo yiri waxa weeye maxay haytay ma jarabtuhum ala al-kadhib bal kuwana wax ka dheh waxaad kale wax ka dhehdaa geedkii damaaj ku yaalay ay dhalinyarada reer damaaj sheegi jireen loo yaqaan shajaratu tawbati Ahmed Eid geedkii ma garanay xuuthiyiintu imika inay gooyeen inuu yaalay balkaana wax ka dheh ee lagu xukumay leeyahay beenaala tahay beenta ka toobadkeen wal uhdatu ala man naqal anu damaajna ma tagin laakiin de waa shay musattara oo kutub lagu qoray kutubtaas oo waliba Sheekh Yaxya al-Xajuuri lagu qoray adina binashrihi wuxuu idma in la nashriyo baltaana ka jawaab waxa adigoo iyo balaawida dhex fadhiya ayaa doonaysa inaad cid kale lawaazim tiraahdo waxa weeye maxay tahay بين الشيخين مجمل كشيخ عبد الله بربراوي وحيابها سو شيغي waxaan qabla الختام tilmaamaya oo iyadana uu taariidiyay oo leeyahay dadka kale inxiraafsan bamaad ka hadashid xujadaasi waa xuja qaasira oo dadka qaar kood ba hadaad cid mas'ala ay ku khaldan tahay ka hadasho ku oranaya oo dad waxa kale masaa'isha kale maxaa looga hadli waayay Sheikh Abdullah Barbaraawi mala waxaad adigu aragtay maqasho baa jira maal arag waxaan ka digayo ummadda aan ka hortaaganahay inxiraafaadka aqlaaniyada leh cilmaaniyada leh kufriyadka leh tasawufka leh waxa soo dhan malaamaad arag shiicada leh marka aad leedahay hadaan ku arkileen adigoo saas sameeyay waxaan oran lahayn sidaa iyo sidaa de waaye orodo qanaad baan leeyahay YouTube ay waxa soo dhan ku jiraane oo website shakhsiya baan leeyahay bal orodo galo bal soo bad iyadoo daatadeedu xuja qaasira ay tahay xuja qaasira ay tahay waxaan ku soo khatimayaa Sheikh Abdullah Barbaraawi wuxuu ku soo gunaanay hadalkiisa
horta intaana gunaanadin anigu bashar baan ay sidaan hore u sheegay kalaam kasto aan ku hadlo oo laazim baatil ka dhalanayo bari baan ilaahay subhanahu wa ta'ala ugahay waana uga toobad keenaya waayo bashar baan ahay hadalka aan ku hadlaa macsuum ma aha laakiin wixii khaladkiisu ii cadaado culaysigu ma aha inaan idhaahdo waan ku khaldamay laakiin ilaa imika waxa uu Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi sheegay waa ru'yada isaga ku jirta weeye iyo sidoo isagu arkay xaqiiqada kama tarjumayso Cabdullaahi Barbaraawi sheegay dhinac waan kala qaatay oo wuxuu yiri clip damba ma soo duubi doono hawshii aan waan ka aamusaya waxaan leeyahay alxamdulillah alladhi askataka an hadhihi almas'ala waxaan kaloo leeyahay alxamdulillah ala an wasalat الرسالة رسالتي مقصودكي أهيد إن مسألة لغا فريسيو إن أن قادني الحمد لله لا تتمنوا لقاء العدو مركا وأن لغا في الله مر هذا انتاسي كفريسي سي والحمد لله إلى مركا حقا كلقات لكن قار كلام مقيقا هذا يسوى قران وإن عدتم عدنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.